بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalyaal ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. waxaan jeclaa runtii dee dhacdada laga wada hadlayo Etoobiya laga wada qayb galay runtii lagama aamusi karo, bal aniga aragtideeda iyo lamoodadeyda sida ay leegtahay baan jeclaa dhacdada inaan ka hadlo. afar kelimaan ka odhanaya. kelmadda koobaad, walaalayaal, waxaan taxisiyeynaynaa eheladii dadka meesha ku geeriyooday. meesha waxaa ka dhacday dhagar foolxun, wax diin dhammaanteed ay cambaaraynayso. diin marka laga tago caqliga xataa bilaa diinta wuxuu cambaaraynayo ayaa meesha ka dhacay. dhagar foolxun oon caadi ahayn baa meesha ka dhacay. waxaa ku geeriyooday dee wararka sugan isberbersanay siday sheegayaan waayeel rag iyo dumar iskugu jira, ubad wiilal iyo gabdho iskugu jira, dhallinyaro intaba meesha way ku dhinteen oo waa lagu dilay. waxaan runtii tacsiye u diraynaa eheladii dadkaas ay ka baxeen. waxaa la sheegayaa qoysaska qaar, dadka qaar baa 20 qof waayey oo qaraabadoodii dhaweyda ama walaalahooda oo rag iyo gabdhaha waalidkooga ilmaadeeradooda, dadka qaar baa 20 qof la waayey. warar sugan siday sheegayaan. meesha waxaa ka dhacday walaalayaal waa foolxumo, waa dhagar, waa ficil runtii aan siba loo ogolaan karin baa meesha ka dhacay. eheladii dadkaas ay ka baxeen waxaan leenahay fa ina lilaahi maa akhada walahu maa actaa wa kullu shayin cindahu biajali musamaa fasbir waxtasibuu. waxaan ku leenahay ilaahay dadka intii u qaatay isagaa iskale, wuxuu bixiyey isagaa iskale. wax walbana waxay leeyihiin xilli ay dhammaadaan. fasbiruu waxtasibuu, adkaysta. adkaysigaana ilaahay inuu abaal idinkaga siiyo ilaahay weydiisto, sidaa yeela. walaalahay allah u naxariisto. dadkeenna inaga baxay dadkaasi waa dadkeennii. soomaali bay yihiin, canfar bay yihiin. canfar iyo soomaali waa dad walaaloo isleh. marka ilaahay ha u naxariisto, ilaahay ha ka abaalmariyo. maxaan ku idhahdayy dadkaasi waa shuhado, waa shuhadaa. dadkaasi waa shuhadaa. marka ilaahay jalla wacalaa ha u naxariisto. ilaahay naxariistiisa jannaa ka waraabiyo. ilaahay ha soo dhoweeyo. marti wanaagsan oo fiican ilaahay ha ka dhigo. ilaahay albaabadiisa naxariista ha u furo. eeladana waxaan leenahay insha allah sabir iyo iimaan. kelmadda labaad, walaalayaal, inagu saacaddaa la joogo ee adduunka ragga u taliya ay raaxaysanayaan. hadda xagaa baa lagu jiraa, xeebaha la joogaa, badaha la joogaa, maraakiib baa la saaran yahay, hudheelaa lagu jiraa, waa la raaxaysanayaa. innaga saacaddaa la joogo adduunka nimankii haystay iyo dadkii u shaqaynayey innaga waxay garteen xaaladda maanta aan ku noolnahay inaan isdillo oon isdooxno. innagoo canfar iyo soomaali gacal iyo walaala, innagoo gacal iyo walaalo isku jiraa inaan isdooxno oon isdillo ayaa la qorsheeyey. waxay ku fiican tahay ayaa ka dambeeya. waxaa dhagartaa foosha xunle meesha ka dhacday marka laga hadlo, dhabta marka laga hadlo ayaa ka dambeeya. runtii wax inagayna dhaafsan baa meesha ku jira. meesha waxaa ku jira dadkii adduunkan baa haystay. taariikhda adduunku maanta sida u socoto dadkii u dhigay, waayaha adduunku maanta sida u socdo dadkii u dhigay ayaa hawshan ka dambeeya. adduunkaa ku jira, dowladaa ku jira, dad damac siyaasadeed leh oo ayaga dantooduba ay tahay siyaasad ayaa meesha ku jira. inagu waxaa noqonay xaabadii baan noqonay, xaabadii aakhirka la hurinayo la shidayay ayaa inagu noqonay. dadka geymka dadka dheelaya, ciyaarta dadka samaynaya, waxaa dadka shirqoolkan dadka dhigay waa adduunka nimanka haysta, nimankii u shaqaynaya oo mandiqada jooga, dowladaha qaarkood iyo ashkhaas gaar oo siyaasad iyo damca gaara leh ayaa hawshaa ka dambeeya. inaguna waxaa nahay xaabadii la adeegsanaya. walaalayaal, adduunka isticmaalku markuu qaybtamay ayaa maanta waxa aan ku jirra baa laga shaqeeyo. ilaa saacadda aan ku jirro inaan sidaas ku haysano qaarkeenba qaarka kale u dooxo waa laga shaqeeya. adduunku waxay noqotay wax ku talagal bay noqotay iyo qorshay noqotay. ruwaanda wixii ka dhacay wada weeyeen
waa tutsi iyo hutu waa la kala qaybiyey oo burundi iyo rwanda ku kala qaybsan yihiin waxaa loo kala qaybiyey weligood baynani sirin meel kastay joogaana inay isxasuuqaan iyago ay jiraan canfar waa la kala qaybiyey etoobiya jabuuti eritrea soomaali waa la kala qaybiyey intaasaa loo kala qaybiyey kurdi waa la kala qaybiyey intaasoo dhan baa loo kala qaybiyey waxaa kala qaybiyeyna wuxuu ahaa maskax bay ahayd adduunka dadkii ugu fiicnaa dadkii ugu wanaagsanaa dadkii la ogaaday haddii la sii daayo oo la fasaxo dad wax qabsan karaya inay yihiin adduunkana wax kusoo biirinaya ayaguna wax isku biirinaya dadkii nooca ahaa waxaa lagu talagalay in la kala tuuro waa layna kala tuuro waa layna kala qaybiyey waxaana laynoo kala qaybiyey weligeen baynaan heshiin saacaddaa iyagu ay joogaan suqule brash suqule coot ay joogaan ay raaxaysanayaan ee diyaaradaha iyo maraakiibta iyo balaashada ay fadhiyaan saacadaha innaguna inaan ishaysano oon isgumaadno oon ubadkeenna gowracno dumarkeenna aan gowracno ayaa laga shaqeeyo dee ciyaartan waxaa la dhigay 100 sano ka hor qarni ka hor 2 qarni ka hor ayaa ciyaartaa la degay marka waxaa ka dambeeya inaan isdillo oon seexan weyno oon walaal noqon kari weyno waxaa ka dambeeya waa nimanka adduunkaasi iyo ciddii u shaqaynaysay mantaqada ku nooleed gobolka ku nooleed ayaa waxaa ka dambeeya innagana garaadkeenni waxaa intuu arko uu dhaafi kari laaya marka inaan isla fahno waxaan meeshuu ka socdo waa daruuri innaga waxaan nahay aakhirkii xaabo innaga marka xaabo ma noqonayna ilaa qiyaamaha innaga xaabo ma noqonayna soomaali iyo canfar inaan isdilo la isku keendiro innaga xaabo ma noqonaynaa ilaa qiyaamaha sidaa ma ku noolaanaa innagoo marka hore baan waxba hayno waddamo ma hayno horumar ma hayno kooraan ma hayno biyo ma hayno tacliin ma hayno caafimaad ma hayno lacag ma hayno waxba ma hayno darayo dhar ma hayno xataa aan xidhanno waxaan isa saarra xataa ma hayno biyo aan cabno ma hayno milix baan cabnaa milix innagoo sidaa u sircayna nolosha haddana ilaa qiyaamaha ma isdilaayo oo ma ishaysanaa may waxaasi waa war uu garaa dhaamo markaa qodobka labaad waxaan ayaa ka dambeeya ayaan rabay inaan ka hadlo geymka nimanka dheelaya waa nimanka qodobka saddexaad walaalahayow markaasaan ku joognaa mise waxaan raadinaa innaga dhab ahaan maxaan isku nahay baan raadinaa canfar iyo soomaali maxaan isku nahay baan raadinaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wahuwa aladii khalaqa min almaa'i bashara fajacalahu nasaban wa sihra wa kaana rabbuka qadiira ilaahay basharka wuxuu ka abuuray biyo dhacaan mani ilaahay deeta wuxuu ka dhigay nasab uu ka dhigay nasab ilaahay wuxuu ka dhigay nasab ilmahaagii waa walaal wasihra iyo gacal buu ilaahay yidhi guurkii waxaa ka dhashay nasab waa lagugu abtirsanayaayoo dee waxaad yeelanaysaa anigaa dhalay waa ilmahaygii gacal baad yeelanaysaa canfar iyo soomaaliya waxaan nahay nasab baan nahay adeer baa laysku yahay abti baa laysku yahay dumaashi baa laysku noqday walaal iyo saaxiib baa la noqday waa la kala guursaday deris baa la yahay afafkii baa la kala beddeshay waa la wada nool yahay ilaahay waa mucjizo ilaahay jalla wacalaa intuu biyaha inaga abuuray inuu inaga dhigay walaal iyo gacal iyo ilmo adeer iyo in abti iyo abti ilaahay inuu inaga dhigay wa aayatu min aayaati illaah waa mucjizo marka canfar iyo soomaali dadka ayaga iskugu dhowo waa dad isku dhex jira walaal baan nahoo isku diin baan nahay innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum ilaahay wuxuu yidhi jalla wacalaa wuxuunbaa walaalaha mu'miniinta canfartu waa mu'miniin soomaalidu waa mu'miniin wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun ilaahay wuxuu yidhi ummaddiinni waa taa waa ummad keliya ana rabbigiinni baan ahayga baqa buu ilaahay yidhi jalla wacalaa wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun ummaddiinni waa taa waa ummad keliya أنا ربي جنبان هي عابدة ولا آيات كلا كل جل وعلا إن أنكسر عنا قرش الدقيق لبقر نكهر وحكدو مدنانت وحكله إن أنا هاي ورال ون دين الإسلام كورال كنا هاي اسكو مساجد بنا هاي صلاة دي بعد تكرينا